khudbadii salaadii jimcaha ee maanta masjidka Huda ee magaalada Boorama Sheekh Maxamed Saciid Saawer waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo taabanaya dhinacyada amniga, dawlad wanaagga, nabadgelyada iyo habdhaqanka bulshada, waxaana ugu horeyntii isdul istaagay amniga iyo wada noolaanshaha bulshada isagoo markaasi diiradda saaray arrimaha ka soo cusboonaaday deegaanka Cerigabo, waxaana uu gebi ahaanba xaraan ku tilmaamay in dhiigga qof islaam la daadiyo isagoo markaasi bulshada ugu baaqay in xaysadaasi la soo afjaro. Cerigabo dhibaato badan baa ka soo socota, meelo badan bay ka socotaa, Kismaayo ka socotaa, meelo badan baa la isku yeelaya Soomaaliyo. Yaani waxa weyn ummadani waa ummad Soomaalidu oo ummad aanan diintoodii muxuu ka fogaaday, waa dad dhaqankoodii ka tagay, waa dad shaydaan meel kale uga yeedhayo, waa dhiig daadanayo moogtay, dhiig daadanayo bal intaan maqlaynuun eg waa la isdilayaa shalay bad weydin Ceriga muxuu Allah saanadu wixii ka dhacay haddana maanta la saanood bay wax ka soo urayaan war ummadan mayna dhiig mayna ka dhargeynin muxuu ahaa walaalkooda ay dilaan mayna ka dhargeynin mayna arkaynin foolxumada markaad walaalkaa disho adna waa ku walaalaan markaad seedigaa disho markaad abtigaa disho markaad in adeerka ku dhinto markaad ninkaad ehelka idan ku dhinto ilaa in wadadku waxa Ilaahay ka abuuray yaa ayuha الناس inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila ta'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum dadku waxay Ilaahay ka abuuray hooyo iyo aabbo buu ka abuuray hooyo iyo aabbo labadaba waa Ilaahay baa ka abuuray basharka bil aadanka Ilaahay baa inuu wada karaamay walaalayaal waxaan leenahay dadka Cerigabo degan Ilaahay inay ka baqano isdaayaan oo inay isdilin haddaad maqasho maalin walba wax la dilayo wad ka naxaysaa qofkii damiir li in kaana fil aqli in kaana damiiru fil aqli haddaad dooshahay wad ka naxaysaa bal waxa ummadda muslimiinta ka dhacay eeg bal Falastiin waxa ka dhacay eeg Falastiin waxa ka dhacay eeg yaana waxa weeyaan waa ummad la dhameeyo la tirtirayo weey waa dad yaana muxuu ahaa isku gurmanaynin oo is hoojiyay oo muxuu ahaa isbaabiyay Soomaaliya siday u dhacday 90 inta ka dambeysaba yaana intii naas mooyaan inta kale dhibaato badan ba ka taagan waayo nabigu wuxuu yiri idal taqal muslimaani bisayfayhima markay labada muslim kulmaan buu nabigu iyaga oo seefta sita oo hubka sita dagaalamaya alqaatilu wal maqtuulu kilahuma fi an-nar labaduba naartay galayaan buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam sadaqa rasuulullah kusaliya nabigu rubu sheegay de nabigi sheegay sida labaduba inay ehlu naar yihiin maxaad ugu ducaynaysaa laba nin oo isdilay oo reer la leeyahay oo dabeel isdilayo ilaa intay dhimatay ha u naxariisato jannada Allah geeyo kuwa dhintana Allah boog dhaba ilaahay inuu naxariisanin kuwa isku dilaya dulmiga isku dilaya moogtay waa dulmi nin walaalkii dilay khayr ma leh waa ya aqliga ilma nabi aadan waxa nabigu yiri kun khayr ibn aadan abu nabigu yiri ilma nabi aadan kii ugu khayr ka badnaan noqo buu yiri waa keebal ilkaasi quraanka sheegaya inaan ku dilaan doonayaa buu moogtay markaasuu yiri dambiga anu gacanta ku soo fidin maayo buu dambigayga baqaad buu moogtay aduu labada aakhirada tag buu ka yiri anu gacanta ku soo fidin maayo ka noqo buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam aduu walaalka gacanta ku fidin laakiin laba muslim oo isdilaya oo dagaalamaya kii la dilay iyo kii wax dilayba nabiga sheegay labadaba inay naarta galayaan sadaqa rasuul nabigu wuxuu sheegay wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha waxa ku hadlaya nabigu waa wahyi Soomaa iskama hadlayo walaalayaal waxaan leenahay war dadka muslimiinta isdaaya sidoo kale ayaa Sheekh Maxamed Saciid Saawer waxa uu hambalyo u diray gudida doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland isagoo markaas ku bogaadiyay doorashadii turxanaan laanta ahayd ee ay guud ahaan dalka ka qabteen ma aha intan oo kaliya balse Sheekh Maxamed Saciid Saawer waxa uu ka hadlay habdhaqanka bulshada waxaana uu gabi ahaanba wax aan banaaneyn ku tilmaamay waxa uu yeelay xaflado ku soo badanaya magaalada Boorama kuwaas oo uu tilmaamay inay yihiin kuwa bulshada kala qaybinaya waxaana isagoo arintaasi ka digaya uu tilmaamay odayaashani reehbel wada sheeganaya ee go'ashaalka iyo koofiyada wada qaatay jilib bay u hadlayaan moogtay war ummadana kala kaxaynina inaga oo wada jira wada hadla reehbel hadaan nahay hadla war ma ummadan niba arkaa leeyay hal dibu dhalad ma taqaaniin dhalinyartu wali ma yarba maade inay ka daawadeen meelaha booyaan muxuu ahaa YouTube-yada kana malaha laga arkay dibu dhalad baa leedahay xooluhu qaar baa madax inta badan sida Ilaahayna bare madaxa soo horeeyay nin baa arkay hal dibu dhalad oo mijihi soo horeeyaano dhalayso wuxuu maxaad badaa buu yiri hashanan ka dhalinaya buu yiri sawta sii galaysa buu yiri
يا سوق مجيه دبده ياله او تو مدخي ودا غشي بوده وتي سقطا ورقبود وسي سقطاي ما واga dhalaya buudi uu ka dhaadhici wada dibadada wax la dhaa way madaxii soo reejinay wada darto wixii sii socdo dabada madaxii inuu war xagan daba qabuul wasi socotaay bash qabyaaladii muxuu barsi galaya wallahi ma kasi galeen reeboore ma waqti anu reeboore ilaahay baa naga dhago dhulkeeniyo waa meel sharaf loo ku faanayno oo ilaahay baa ina dhigo inoo doortay subhanahu wa ta'ala waa dad ahlu sharaf oo fiican Soomaaliya dhabadooda fiican ahlu sharaf laakiin waa maxay qabyaaladan ayna waxba ku qabin uba masiiba bal telefishinka u daawada inta ugu badan meelaha booraba iyo kolba ma taxulay gabdhii reebel oo hadlay gabdho wareeyada dadka kala soo soocay dadka inta la yuri habeeda waxa la waa gabdhii reebel ragga way dhaaftay war gabdho dawladda tagayaan gabdhii baa la leeyay boorama soo saaray gabdha soo barnaabaxa haddaan gabdhii reebelnahay ma sheegay dad sheegay wada xanaaqaysan gabdhii reebelnahay gabdhii caawa gabdhii reebel caawa gabdhii reebel caawa waa dhalinyartii way dhaaftay raggii maxaa la yiri waar waa meel lagu jabay moogtay wallahi waa meel waa wax waa boorabay ahlu ilaahay magaalada inuu hagaaji reebelnimo wallahi waxa alle waxay soo waday inay jirin cishada aad aragtaan nin reebelnimo ku faanaya beenani ma sheegayo qofkaasi waa qof noloshu ay ka soo gaabatay oo iswadi kari waayay soo moogid ninku markuu socon kari waayo uu reebel sheegtaa yaani waxa weey meeshan tagabo inaan ku noolaanayo aaminsanay wallahi haddaan tago meesha aanan kismaayo haddaan tago meesha meel dhukaas wad iskaga noolaani waa meel Soomaali ah waxa ku haya dabeecadaada iyo aqoontaada iyo bini'aadanimadaada Soomaa meel kale lagu odhanaya gacal bad iska digi karta jigjigan tago way soo dhaweeyaan tir dhago waa tagaysa war magaaladan dadka ninku markuu isa soo koobo dadka waxa la yiri dadku waa bangiga la iska macaseeyo soo moogid imika bangigu waa inuu account wax ku jira Soomaa haddaad account-ka ka wada saarto uu xidhmaya Soomaa dadka bilaadku waa wada bangi baa nin kasta waxbaad ku leeyahay ha iska wada casaynin haddaad qof kasta dheerqaysada caydo waad iska casaysay qofkii bangiga waa iska wada xidhay kan waa bangi kanaad bari waa abtiga kan waa ina abtiga kan waa saaxiibka kan waa seediga bay walaalayihiin sodohdaa bay isku yihiin Soomaa bal silsilada un hayso dadka sidaas waa wada bangi war bangiga iska casaynina kolkaad kana xumayso ee sodohdaa xumayso ee seediga xumayso ee abtiga xumayso ee waxba xumayso gebi way ka xidhmeen waa wada casaysay bangiyadii meel ku noolaanaysa ma jirto maxaa markaa ku hadhay haddaan reebelnahay taraaween moogta daan reebelnahay wakada soo hadla garan bayna reebel sa lagu hadlo laakiin reebel uu dhib yahay moogta reebelnimada sa lagu fahmo cid baa ku faanta war waxaasi wax lagu daaweeyay moogta ودعوة الجاهلية نبي قلنا شيء ودعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة نبي قال وح أوريس كتبوا النبي قال موت وردت كان بيها ودعبي يا لك حين يا أنا لك لسعين ورنك الضنا يوح سوق بجبين يا هل كاتبوا وح سوق قاضو إلى هنا حكوا بركة وح سوق قاضو صوما عبد الله علي يوسف عن كابل تي في بورما.